السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها قدية دقالها برلمانكا يحبنيهيسا وزارة ganacsiga iyo maal asxaabtayda colleagueskayga maxaan ku dhahaa wasaarad macnaha rugta ganacsiga khubarada ganacsiga iyo maalgashiga iyo lacagaha ururada UNIDO GAIL oo USAID iyo maxaan ku dhahaa FAO hay'adaha cilmi baarista bangiyada kulli waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddoomiyaha iyo xubnihiisa fursaddan ayna siiyeen ay tahay inaan ku soo bandhigno insha Allah la wadaagno qaabkii annaga aan u sameeyno maxaan ku dhahaa saameyntan cudurkan COVID-19 ka ah sida guddoomiyaha uu hore igu sheegay waxaan annaga hore ula soconay maxaan ku dhahaa dawladda inaan la sameeyno barnaamijkan oo aan wax far badan la wadaagaynay barnaamijkan waa dulmar oo maxaan ku dhahaa aan ugu talagalnay bilow cilmi baaris waxaan bilownay 15 March oo guddoomiyaha nagu baraarujiyay inaan ka wada qayb galno shir taasaa marka waxaa jirta waxaa dhacday taasaa marka waxaa jirtay inaan markaas aan bilownay inaan sameyno xog waraysi waaxyaha sektarada uu ka kooban yahay chamberka xogahana marka waxay yihiin xogaha aan rabno maanta inaan la wadaagno sidaan ognahay waa virus dunidoo dhan saameeyey waxyaabaha ugu waaweyn uu saameeyeyna waxa waaye markaad isku soo duuduutay dhinaca dhaqaalaha meeshan markaad fiirisid waa sida adduunka uu saameeyay meelaha guduudka waxaad malaysaa inay tahay meesha ugu khatarsaneed madowgana waa meesha ugu yaray Soomaaliya waxay dhacdaa meelaha ugu madowsan alxamdulillah waa ilaahay nagu sardhabay xogtan waa xog aan ka soo qaadanay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka maalinka ugu horeysay oo ahayd 15,000 soo 15,000 tan waa bishii ku xigtay ilaa 2,000 oo gaaray 500 oo zaa'id ay soo dhacday bishii ugu dambeeyay daraad aniga aan ka soo helay website-ka maxaan ku dhahaa wasaaradda caafimaadka waxay sheegaysaa qiyaastii 2 laab markuu bilowday inay ahayd sidaad arkaysiin waa gobolka Banaadir magaalada Xamar Muqdisho waxay ahayd meesha ugu badneed saameynta ugu weyn oo ku lahaa cudurkan taasna waxa keenayso density-ga dadka ay ku badan yihiin iyo macaamilka dadka ay leeyihiin iyo sidii cudurku faafay inta waxaan ka arkaynaa siyaabo fara badan oo kala gedisan in macnaha uu dhacaayay marka Afrikana loo barbar dhigo oo intooda faraha badan marka laga reebo IDPs-ka marka laga reebo inta kale aad u malaysid iyo dawladdeena oo fragile ah marka laga reebo labada kale aad malaysid annaga inaan ku lahayn advantage saameynta inta waxaan ku sheegaynaa dhaqaalaha uu geystay sidan hadaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn oo hoos ka galay waxay ahayd dhaqaalaha marka ugu dambeeyay uu ku sameynayay dib u dhac financial crisis ka markaad fiirisid wuxuu ahay sector uusan marin ma laha marka laga bilaabo hooyada masaakiinta suuq wax ku gadeeday ilaa ganacsatada ugu weyn chamberka saasa waxaa dhacday ganacsato fara badan inay suuqa ka baxeen meesha markaad fiirisid ayaa aan u dhawaado meesha markaad fiirisid waxaan ka bilownay bangiyada waxyaabaha ugu waaweyn oo ku dhac waxaa ka mid ahaa inay ahayd deyn bixintii iyo faa'iidada yar saaran jireen oo keentay in shirkadihii aysan awoodin inay bixiyaan oo aad iyo aad dhib uga soo gaaray xawaaladii hore aan u sheegnay waxyaabaha ugu waaweyn professor Qoloco si fiican u sheegay mar raba inaan ku noqdo taas waxay keentay inay keento dib u dhac weyn sidoo kale diyaaradaha markaad fiirisid shirkadda diyaaradaha aviation-ka waxay ahayn kuwa ugu waaweyn number ahaan annaga aan soo helnay inay ahayd meesha jugta ugu badan ee dhinaca dhaqaalaha ka soo galay calaamad waaye sidii u joogeen in qoolay abuul ku samaysatay day waxaan gadaal u noqoray
وشركة travel agency كده ولا حريران سيدا كل aviation إلا 22 مليون hospitality markaad fiirisid dalxiis ma qabna waxaan ka waday in albergooyinka iyo maxaan ku dhahaa maqaayadahooda waxa soo gaaray qiyaastii 27 milyan markaan qiyaasnay oo aan sameynay qaab habraac shaqaalahooda running cost badeecadaha markaad fiirisid waa badeecadaha meesha ugu waaweyn khaasatan maxaan ku dhahaa waxyaabaha la soo dhoofiyay waxyaabaha wadanka dhexdiisa ah oo keentay dib u dhac aad u weyn waa arkayna haddii ilaahay markaan helno table-ka waa kana dhoofinta guud ahaan markaad fiiriso waxa la dhoofiyo iyo waxa la soo dhoofiyo la soo geliyo arif yani ku fiicnad export iyo importka exportka markaad fiirisid waxaan helnay in khasaare la milyan iyo 300 jajab ay tahay importigan uu noqday ilaa 5 milyan iyo 200 jajab fartan guduudan kulli ma wada arkaysaan waa ka xumahay waa hal shirkad oo Soomaali ah oo importation ku sameeysa ka keenaysa China China calendar holiday geeda markuu ku aaday kadibna ay ku xeegsatay COVID-19 waxa dhacda 124 container iyadoo soo wada waxa ku dhacay khasaare ah markii inta la timid 775 oo ay uga dhacday maxaan ku dhahaa dekadayna xamar taas marka waxay ku tusaysaa hal shirkad intaas markii ku dhacday inta kale noo qiyaasi karnaa sidoo kale shidaalka gudoomiyaha si fiican u faahfaahiyay qiimaha lagu soo gaday iyo qiimaha markii dambe ay timid farqooda markaad fiiriso u wada bedeshad waxaan ku arkaynaa table ka soo socda insha Allah waxaan arkaynaa ilaa 26 milyan shidaalka markaad fiirisid wuxuu ahaa 114 73 uu noqday farqa waa 44 marka ugu dambeeyana wuxuu noqday 26 milyan iyadoo shaxa waa arkaynaa insha Allah day waa kana shaxda markaad fiiristaan si fiican looma arkayo laakiin waa xisaabtan hadda afka ka sheegayo oo qoran oo loo kala qaybiyay SFC iyo Costalina iyo kuwa kaleeto waa ilaa 20% labadaas ugu waaweyn shirkadahan kaleeto yaryarka distribution wax yar Allah dib u noqo lahaa isku darkooda wuxuu ahaa ilaa 4 milyan shirkadaha yar kuwa kalena waxay ahaan 20 iyo isku darkooda markaas wuxuu ku noqon 26 milyan day energy-ga waa shirkadaha beeko iyo camal noocooda muqdisho iyo blue sky tartiib adeer gadaal noqo waxba kama sheegin gudoomiye waxba kama sheegin Allah waa qiyaastii waxaan ku qiyaastaa markaan isku soo wada dardarnay ilaa 1,500,000 qasaaraha qaarkoodna ay weli leeyihiin way ka badan yihiin day beeraha markaad fiirisid waxaad malaysaa sida hadda la sheegay wax soo saarka in wax yar loo jeesta alxamdulillah ay ahayn kuwa ugu caymisan day kalluumaysiga waxaa jiray isu socodka maadaama uu jiray container far badan oo hakad galay laakiin guud ahaan markaad fiirisid qiyaas u ahay warshadaha sidoo kale isku darkooda waa 2 milyan iyo 300 waxay isugu jireen shaqaalihii dadkii lacagta bixi waayay ardaydii transportationkii waxyaabahaas oo dhan marka waa 2 milyan iyo 300 day xoolaha bilcaks waxay ahayn kuwa ugu roonayo hela markaas maxaan ku dhahaa suuq sectorkaas day inta markaad fiirisid waa khasaarihii soo gaaray sectorka 11 sector naga leenahay qaybtan ugu xayso waa diyuuradaha dalxiiska shidaalka travel agency warshadihii korontada iyo dhoofinta wadartooda markaad fiirisid waxay isku aaday 204 milyan iyo jajabkaas day inta waxa way xogihi aan ka helnay maamul goboleedyada oo aad fiirinaysid bidix ilaa midig bidix waxa waa Jubbaland waxa ku xigta Koonfur Galbeed Puntland Hirshabelle Galmudug iyo wadartooda imaanaysa 77 milyan day inta waxaan isku darnay goboladii iyo shirkadihii 11 sector oo maxaan ku dhahaa chamberka isku darkooda markaad fiirisid waxay amaan gareynaysaa 2 milyan iyo waxaan 255 milyan day tax macna colorkan waxaan u sameynay qiyaastii guduudka inuu ugu yahay kuwa ugu dhibka badan cagaarkan iyo kuwa ugu faa'iidada badan kuwa ugu faa'iidada badan dhib aysan keenin faa'iido helo waxa kamid ah livestock iyo telecommunicationka waxa ku xiga agriculture-ka fishery maxaan ku dhahaa construction-ki remittance-ki xawaaladihii export import-ki manufacture-ki ilaa kuwa ugu dambeeyo sidaan sheegaynay airlines-ki iyo travel agents-ki iyo dalxiiska gudaha ahaa maxaan ku dhahaa albergooyinka day kan waxaan ku soo kooban rabay inaan si guud hal mar u wada dhaho waa cagaar iyo guduud san isugu imaanaya cagaarka waa kuwa ugu roonaya oo ah bangiyadii iyo telecomkii iyo maxaan ku dhahaa xoolihii oo isku soo wada daray
waxa ku xigo inta xoolo haddana khaas ah kalluumaysiga iyo beeraha sababtan isugu soo diro kuwaas waxay ahayd waxa xoogooda sida hadda professorka uu sheegay ahayd waxaan inaga dhoofin waa un saddexdaas badankood waxaa noogu xigo warshadihii qaybta ugu dhibka yar waxay import exportkii shidaalkii maxaan ku dhahaa albergooyinka hoteeladii iyo diyuuradihii lockdown saas noogu dhacday meeshan wax far badan oo tala aan bixin karna ma laha oo aanan ahayn in dawladda ugu yaraan sida gudoomiyaha ka dhawaajinayay dhinaca fiskalka ay qayb weyn ka qaadato waana runtii sidoo sheegay ciilka uu qabo waa la wadaagnaa farsamo ahaan markaad fiirsato waxaad arkaysaa figures طبعا ganacsatada waxa xanuujinaya jeebkooda taas marka waxa ka daliil ah shirkadda haday aniga line-ka guduudka ahay oo kaligeed khasaartay 700 iyo jajab kun ku gaartay macna dekada taas waa calaamad su'aal runtii fiicnaan lahayd macna in macna laga shaafiyo shirkadaas waa hal shirkad kaligeed marka dhinaca dawladda markaad fiirisid waxa jira fiscal iyo policy support oo fara badan xaqiiq marka loo hadlo waa calaamad su'aalo fara badan jiraan guud ahaan markaad fiirisid waxyaabaha aniga aan dhihi lahaa waxay policy xoog leh inuu yimaado oo policy emergency ah kaysaskan kale markay dhaco dhinaca ganacsiga oo loogu talagalo ama loo fududeynayo in canshuurihii ama loo fududeynayo policy ku abaarnay ganacsatada guud ahaan laakiin markaad fiirisid طبعا resilience lagu sheega private sector ka alxamdulillah gudoomiyana aad macna oo hoost ugu xariiqay taas waa waxa ka gudbiyay ilaa iyo hadda alxamdulillah sadaqada dabcan ay baxsadaan jidadka ay sameeyeen dawladda inay gacan weyn ka qaataan marka laakiin markaad fiirisid xaqiiqdi dhinacaas waa dad ma haysan laakiin way fiicnaad macna in macna la dhaho maxay ku dhacday hal shirkad 7 ku dhawaad milyan inay ku khasaarto dekada dhexdeeda waa ka bixi salaam calaykum